aan ka hadlayo waxa waaye baby waxa ay tahay erayga oo Englishka lagu daray. One of my friends oo saaxiibaday kamid ah wadanka markii la yimid waa dadka hadalkiisii waa dadkii waa sii jilcaan qofkii sheekh ahaa jir dadkii dhammaan niyadooda noqotay nin saaxiibkii habeen gabar uu la hadlaayay laakiin waxa moodaa inuu qodba akhrinayay 2 hours inuu soo maraya moodaa afkiisa naabta ku taala waxa maxaa kugu dhacay waxa gabar badriyay 7 hours gabadhaas waxa laga yaabaa inaan la isguursan baby-diina waa dhamaatay gabadhaas oo kale oo 7 hours aan la hadlaysay oo aan moodo 12 hours inaad soo maneed waa inaad guursatid haddii kale baby I love you more than anybody does not make sense if you say somebody I love you baby that means I will marry you sheekha maanta la hadlayay dadka dhalinyarada guurka aniga line-ka horaan galay reason-ka aan galno waxa waaye I'm the one of them macnaha oo guur raadinayo haddaan wax qaldo iyo haddaan wax saxabo sheekha waxa warqadaha haysto dhan ii print garay xaga u wadaa hawri waxa dad baby-du ka dhamaatay jirto raadkoodana aan gaarin the only reason marka aad goolka ku gaari kartid haddaad baby badan akhrisid waa inaad guurkeeda gaartid hooyooyinkanaga hore geela laga bixi jiray saasan lagu soo wada dhalay hooyada daldilay wiilkaaga xaga u jira maanta America ma karta gacantay saas leedahay ma qof xaga jirto millions xaga jirto laakiin waxa waaye muhiimku waxa waaye dadka aqoonta leh aqoontu waa muhiim marka America imid English dhaxa ma aqoon iskuulku ugu horeeyay aan bilaabay macalinku yiri essay hal qor essayga dhan ma aqaanba wuxuu yahay lix baan aqaanay lix xab waxay ahaayeen excuse me what's your name where have you been and take this paper intii aan qoray waa si this is not English the only things I know waa intaan ninkan galaasyada iyo asalka la geeyo waxa dhan raadinaa iyo asalka aan Soomaalidu nadal waa ka faana aqoonta haddaad aqoonta ka faa'iideysid diinna ma gaaraysid aqoon kalena ma gaaraysid cilmigu waa isku xiran yahay nin Soomaali ana maalin ciid xisaab u dhigaa u yimid wuxuu yiri waxaan rabaa inaan xisaab dhigto wuxuu yiri waxaan ka soo baxay jaamacadda Gaheyr ee Soomaaliya waxaan ninka loo baahan yahay tahay oo dadka naga kaalmay karo waxna u qaban karo waxaan imtixaan yar jiro la iska qaado wuxuu yiri anigu jaamacadda Gaheyr ma ka soo baxay imtixaan iga qaaday waxaan jaamacadda Gaheyr iyo imtixaankaas ma leh waxaan weydiiyay 3 times 9 is equal waa 27 kulaha gaariga baakin qalad iga yaala gaariga meesha ka wadana dib uma soo noqon ninkaas suuqa Soomaalida ku arkaan maxaa kugu dhacay anaga 3 times 7 weydiino hor waadana ku idin maxaa soo bilaayaan wax kala hayaani waxa yiri ilmahiina America wax ku barto waxa ma taqaan ordaan naga tag taashidkii la soo dhaafay aashiiqo hore caawa 27 waaye qof kasta oo ka faa'iideysto aan macnaha wax kasto Ilaahay oo ka baryo wuu helaa aniga 7 qodob aan soo qaatay Ilaahay wadankeena dawlad ka dhali waa ku guuleystay aamiin gacmo mar kor loo taagay midii labaad waxay ahayd Ilaahay dadka muslimiinta niyadooda soo jeedi waa ku guuleystay tii saddexaad waxay ahayd dadka Soomaalida Minnesota joog Ilaahay isjeclaysi waa ku guuleystay tii guurka sheekhu wuxuu yiri midii guurka markii la maraayo wuxuu yiri waa inaad macnaha aad diyaar u ahaato waxaan hawlahayga waa waxaas markii la maraa meesha guurka rukuucdina waa soo dhowdahay waaya maxaa sir ka gaarsi inta kale u kaadi guurka kugu daran hadee mar alla markii ducadii guurka aan bilaa waxaan gabar aqaan oo dhan niyada soo galay waxaan bilaabay adiga ma ahana gudub adiga ma ahana gudub adiga ma ahana gudub adiga ma ahana gudub
هذا وجر الشيخ وامر ركوع أنا قام من حاب ورايتها كمان فائدة سنة هذا تو نسمع كلام سجاه مدي يقول صور هذا هراك قبسنا هذا أنا كور جرسم به مركب وحنا نشتغل ولا له إنه أمد صوم مسلمين تعرضن شو هو مهم إن الاستعلاض لكن قبل يويلكو هذا يسلا السعودان أما شرفتي ولا المدى أما المسلمين توعي كجرتها تذكر وحى أركي ويلي قبل أفر سنة سلا السعود وحي كهلنا قوي هاين قاريga is beautiful wargaarigan ha ka qosay guurka ma ka hadash markii aad rabtid ama inaad macnaha future gaartid ama aad gaartid inaad macnaha aad leedahay qowl waa inaad suubsatid meel aad ku socotid laakiin haddii warku ka dhamaado annaga internet Ameerika ku nool waa isnaqaanaa شيخنا ما أنتوا حدها يا هادي there is no day though هارتي day ما بتشرب I love you more than anybody let's go out ما بتشرب قبل ده هو يدي أبيض لهذا هادي كوا قلادان أو إيمان كجاي أركان you go to go هادي إيمان كجاي قلنا درساقات كلا راتس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته